inan yarba aabaheed ku tidhi aabba da'dii gabdhaha lagu guurgelinayo waan gaadhay kollay waad ii maqan tahee laba nin midkoodun aniga ii keen laba nin midkoodun baad ii keenaysaa nin aan weligii dhimanaynin iyo nin weligii faqiir aan noqonin labadaa un ii keen bay ku tidhi midkood waar ma jira uu yaabay odaygii odayaal buu waraystay waar ma garanayne bal iyada weydii iyadii baa loo yimid oo lagu yidhi aabbo halka soo fadhiisay buu yidhi berigaa gabdhuhu may soo haasaaweynin toosh intay qaadatana ninkay doonta ma soo egeeganayne gabadhu markay kortay barbaarto guriga kamay baxayne aabbaheed iyo adeerkeed iyo walaalkeed iyo abtigeed hooye la dhashay ayaa u soo baari jiray ninka ku munaasibka gabadhaas innagana zamankeenna waa maxay soo egeego bal mid lacag low keen shageeyo uu keen wadaadun hanoo keeni bay odhanayaan qaarkood wadaad hanoo keeni gabadhii odaygii uu la fadhiisto wuxuu yidhi aabbo ninaan weligii dhimanayn ma jireen maxaa ujeedaa waxay tihi waa ninka 9 wiiloo walaaluu la dhashay hadduu iga dhintana ka kaloon bay guursan bay tiri ilaa 9 ka aan dhammeeyo ka bixi maayo aqalka weeyaan uu fikray waa runtii ilaa gabadha kaan faqiir noqonayna waa kuma waa ninka quraanka ilaahay xambaarsan ee xaafidal quraanka weligii faqiir ma noqdo bay tiri gabadhaas iyo diinta barana soo diyaar ma nihin oo iimaanka barana oo dacwada ku xidhnaano masaajidda la geeyaa jamaacadada la baxaan ilaahay dartiib ay u baxaan naftooda soo islaaxiyaan bi'adan faasidada maanta adduunka meel walba gaadhay